أقبلت يا رمضان يا شهر الهدى أقبلت يا رمضان يا شهر الهدى يا سعدنا لما هلالك قد بدا وحللت يا شهر الصيام مبارك. الحمد لله رب العالمين. حلقتهني aynu kaga waramayna iyo casharadeenna aynu kaga waramayna bisha Ramadaan waxaynu soo gaarnay xalqadii shanaad. xalqadan waxaynu ku qaadan doonaa manzilatu siyaam Ramadaan. bisha Ramadaan in la soomo manzilada iyo booska uu ku leeyahay islaamka dhexdiisa. walaalkayga muslimka waxaad ogaataa bisha Ramadaan soomitaankeegu waxa uu ka mid yahay tiirarka waaweyn ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala islaamka ku joojiyay. marka muhiimad badan iyo manzilo weyn ayuu islaamka dhexdeeda ku leeyahay, waana rukni asaasiya oo min arkaan al-islaam. sidaa daradeed waxyaabaha mudan manzilada ina xasuusinayna waxa kamida koow qofka muslimka ah waxa ku waajiba in soomkiisu uu ahaado mid iimaan Ilaahay tabaaraka wa ta'ala uu rumaysan yahay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ku waajib yeelay bisha Ramadaan soomitaankeega qofku waa inuu qalbiga iyo niyada ku hayo. Ilaahayna Quraanka waxa uu ku tilmaamay faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. sidoo kale nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waxa xusay isagoo ka waramaya manzilada bisha Ramadaan iyo soomkeega uu leeyahay ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa ataakum shahru Ramadaan شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه. وعايدين تمد بشي بركة سنيد وعايدين تمد بشي رمضان وبالإلهي تبارك وتعالى أدومه سأكفر ليالو أو كواجبيو إني صومان قضب كاللباد ولا الكيغ مسلم كأوه واحد يقين سناته وعاد قلبي ين يدكو هايسا صوميتان كبشي رمضان إنو كميدي هاي inaad oogayso rukni kamida arkaantii waaweynada islaamka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku bineeyay inaad taa yaqiinsanaato oo aqoon iyo cilmi u yeelato muhiimadda iyo ahmiyada uu leeyahay soomitaanka bisha Ramadaan iyo makaanada uu diinta islaamka kaga jiro. nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay buniya al-islaamu ala khams. islaamka waxa lagu taagay 5 tiir oo asaasiya. 5 tiir waxa kamid ahaa shahaadada qiritaankeega iyo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam qiritaankiisa. waxa kamid ahaa in salaada la oogo, waxa kamid ahaa in zakada la bixiyo, waxa kamid ahaa in xajka la tago baytullaahi al-xaraamka. waxa nabigu calayhi salaatu wasalaam arkaantaasi ku daray oo uu ka waramay soom Ramadaan. bisha Ramadaan markay soo gasho in qofka muslimku uu soomo. qodobka saddexaad manzilada iyo makaanada ay leedahay waxa inoo cadeynaya soomka bisha Ramadaan la soomaya waa maslahatun lak. adiga ayay dan ku tahay waayo Ilaaha tabaaraka wa ta'ala kugu faral yeelay iyo kugu waajibiyay waa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilaahayna waxa ku dan ah ee maslaxadaada iyo wanaagaaga iyo horumarkaaga ah. Ilaahay subhanahu wa ta'ala isaga oo aqoonaya cilmi badan. alaa ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiiful khabiir. walaalayaal marka aad sooman tahay qodobka afraad manzilada iyo makaanka uu soomku leeyahay waa inaad Ilaahay tabaaraka wa ta'ala ajri kaga dalbataa oo aanad shay kale oo aan ihtisaab iyo ajri dalab aan ahayn. qofka waa inay niyadiisa iyo qalbigiisa aanay ku soo dhicin. dadyaga qaar baa waxa niyadooda ku soo dhaca inay xanuunada qaar isagoo Ilaahay xikmadihiisa iyo wanaagiisuba uu ku jiro, laakiin qaar baa niyadooda waxa galaya iyagoon ajri dalab gelin ayaa waxa galaya isku dhuub isku daawe miisaanka iskaga rid shahwadaada iyo rabitaankaaga iskaga khafiifi abaal Ilaahina tabaaraka wa ta'ala ka dooni maayo. kaasi walaalayaal kii loo baahnaa ma aha, laakiin wuxuu u baahan yahay soomku ihtisaab iyo in Ilaahay tabaaraka wa ta'ala lagaga ajri dalbo. haddii laakiin adduunyo kaliya oo kooban niyadaada iyo qalbigaaga aad geliso, Ilaahay Quraanka waxa uu noogu xusayaa man kana yuriidu al-hayata ad-dunya wa zinataha. qofka adduunka iyo dhaldhalaalkeega doona nuwaffi ilayhim a'maalahum عمل كوجو ونو يفننا فيها وهم فيها لا يبخسون.
adduunyadii qofku inuu kaliya ka fikira maaha waa inuu aakhiradiisana raacsado waxaa ka mid ah waxyaabaha qodobka shanaad ee ina tusinaya waxyaabaha uu qofka muslimkii manzilada iyo makaanka uu soomka bisha Ramadaan uu leeyahay ihtisaabka iyo ajriga uu kaga doonayo abaalkeeda kaliya waxa siinaya Allah tabaaraka wa ta'ala nabigu calayhi salaatu wa salaam xadiis al-qudsi uu ka waramayay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu tilmaamay oo nabigeenu calayhi salaatu wa salaam uu nooga waramayay adoon kasta shaqada iyo amalka uu qabanayo ilaahay tabaaraka wa ta'ala uu ulibin laaba markaasuu u kordhiyayo u ziyaadiyaa ilaa lagu bixiyo darajo 10 ilaa la gaarsiiyo 700 ilaa la gaarsiiyo libin laab markaasaa ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi soomka maya soomka aniga leh abaalkiisa iyo ajrigiisa aniga bixinaya marka soomka ajrigiisu waa inuu noqdaa wax ilaahay tabaaraka wa ta'ala agtiisa ku weyn oo ku yaala inuu jiro walaalkayga muslimka oo hadaad soomayso qalbigaaga iyo niyadaada waa inay ku soo dhacdaa inaad rabitaanka ilaahay wajigiisa oo kaliya aad ku soomayso oo shahwadaadii iyo cabitaankii iyo cunistii aad uga tagtay ilaahay daraadii nabigu calayhi salaatu wassalaam soo xadiis al-qudsi warinaya xadiiska aynu soo tilmaamay ilaahay waxa uu tilmaamayaa soomka aniga iskale anigana abaalkiisa iyo ajrigiisa ruuxa siinaya waayo qofkaas waxaan ugu bixinayaa shahwadiisii iyo cuntadiisii iyo cabitaankiisii wuxuu iiga tagay buu ilaahay tabaaraka wa ta'ala tilmaamaya min ajli aniga daraaday buu uga tagay marka waa inaad si aad u xaqiijiso bisha Ramadaan soomitaankeega iimaan ilaahay tabaaraka wa ta'ala aad rumaysan tahay iyo ajri ilaahay tabaaraka wa ta'ala aad kaga dalbayso si ay kuugu xaqiiqowdo in ilaahay tabaaraka wa ta'ala dambigaaga hore iyo kaagi dambeba ilaahay subhanahu wa ta'ala dhaafo nabigeenu calayhi salaatu wa salaam xadiiska Abu Hurayra warinayo waxa uu tilmaamayaa man saama Ramadaan iimaanan wa ihtisaaban qofka bisha Ramadaan ay u soo gashay ee sooma laba arrimoodna laga helay arrinta koobaad ee laga helay waa qof ilaahay tabaaraka wa ta'ala rumaysan oo rumaysan waajibkan uu gudanayo in ilaahay tabaaraka wa ta'ala ku faral yeelay shaqada uu qabanayna ilaahay tabaaraka wa ta'ala ajri iyo wanaag uu kaga doonayo qodobka labaad waa inuu ihtisaab iyo ajri dalab yahay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka rajaynayo inuu ajri iyo abaal iyo wanaag ka helo qofka labada arrimood laga helay wafira lahu ma taqaddama min dambigiisa hore oo dhan waa la dhaafaa sidoo kale nabigu calayhi salaatu wassalaam waxa uu ka warramay ruuxa bini aadamku salaadaha shanta dhexdooda iyo jumco laga gaadhay jumco kale iyo Ramadaan kale laga gaadhay Ramadaan kale waxa lagaga dhaafaa dambiyada ayaa lagaga dhaafaa waa hadii qofku uu ka dheeraado dambiyada waaweyn ee ilaahay tabaaraka wa ta'ala kabaa'irta uu ku xusay marka walaalayaal qofka muslimka niyadiisa waa inay markaa ku jirtaa in manzilada iyo soomkaasi qiimaha iyo wanaaga uu leeyahay waa inay qulubtiisa ka guuxaysaa ilaahina uu rumaysan yahay ilaahina tabaaraka wa ta'ala uu kaga ajri dalbayo rafaadka iyo daalka iyo luunka iyo gaajada uu dareemayna ilaahay tabaaraka wa ta'ala wajigiisa uu ku ilaawo ilaahay tabaaraka wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa inuu soomkeena inaga aqbalo ilaahina waxaan weydiisanaynaa maalmaha dhiman in ilaahay tabaaraka wa ta'ala ina gaarsiiyo inagoo nabad qabna caafimaad qabna inaga dhigana kuwa ka faa'iideysta wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in